السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركز السود وهذا أدي هذا ومهتسنتهين ما أنتوا ثلاثة وأنا أفريت وأنك بيش تضبط جولاي سنة كلا بدو كن إيه اللحية لباتنك مقال كان ما أنتوا حربا إن ندي كله وذاقه أن حراليها دقمة حنبين مقالة مينيابوليس أو شلي شرج رائد قبتي أي waxay sheegtay in dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda amniga gudaha ay ku soo wareejisay cadeymihii dilalkii Rene Good sidoo kalena Alex Brady iyo nin kale oo ay dhaawaceen ciidamada ICE intii howlgallada ay ka wadeen magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul oo magaciisa la yiraahdo Julio Cesar Sosa Celis dhammaanba cadeymihii ayaan helnay ayay tiri haddana dib ayaan u eegaynaa kadibna waxaan go'aan ku gaaraynaa inaan dacwad ku soo oogno askartii ka tirsaneed ciidamada ICE ee dishay Rene Good iyo waliba Alex Brady ninkaas kalena sidoo kale dhaawacday ICE oo shalay nin kale oo soo galooti ah ku dilay magaalada Bedford ee gobolka Maine waxayna ay sheegeen ninka ay dileen in uusan ahayn qofkii ay raadinayeen waa wax ka yar toddobaad oo laba qof ICE ay si qalad ah in ay ku dileen ay qiranayaan labadubana dad sharci la'aan ah oo soo galooti ah arrintaasina waan idinla wadaagaya madaxweyne Trump shalay waxa uu sheegay in dhammaanba maraakiibta sida xamuulka ee marinka Hormuz maraysa 20% lacag ah ay Mareykanka ay siinayaan haddaba arrintaasi maanta arrin kale ayuu ku bedelay arrintaasi maxay tahayna sidoo kale waan idinteena waa inaan ka cilmi qaadano dugsiga tarbiyada islaamika academy haddii aan ku bilaabo dilkii Rene Good iyo Alex Brady hadda 6 bilood ka badan ayaa ka soo wareegatay waxaan ognahay intii howlgallada ciidamada ICE ay ka wadeen magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul in 7 January ay dileen Rene Good oo dadka ka soo horjeeday howlgallada ciidamada ICE ay ka wadeen gobolka Minnesota gaar ahaan Minneapolis iyo St. Paul in ay 7 January iyadoo 37 jir ah ay geeriyootay toddobaad kadibna 24 January ciidamada ICE waxay dileen sidoo kalena Alex Brady oo gacan mobile ku haystay oo duubayay isla markaana kamid ahaa dadka ka mudaharaadayay howlgallada ciidamada ICE ay ka wadeen magaalooyinkaasi mataanaha markii dilalkaasi ay dhaceen sidoo kalena 14 January ICE waxay sidoo kale sinta xabad uga dhufteen nin wadanka Venezuela ka soo jeedo oo Julio Cesar Sosa Celis la yiraahdo isagana si qalad ah ayay ku dhaawaceen maxaa yeelay qof kale ayaa iyagoo ceersanaya ayaa ninkan ay xabad ku dhufteen xitaa markii dambe waa ay xireen oo waxay yiraahdeen ninkan askar ayuu isku dayay ciidamada ICE inuu waxyeeleeyo walow markii dambe dacwadihiisii meesha ay dowladdu ka saartay ninkaasina la soo daayay marka gobolka Minnesota waa loo diiday dhammaanba cadeymaha dilalkii Rene Good iyo waliba Alex Brady waa gaarigii Rene Good waa tii la qaatay kaamarooyinkii ciidamada ICE ay u xirnaayeen waa kuwii loo diiday in gobolka uu baaritaan ku sameeyo marka xeeraryaha guud ee gobolkaasi Keith Ellison iyo dacwadoogaha degmada Hennepin oo Minneapolis ay ku taalo halka dilalkaasi ay ka dhaceen waa kuwii wasaaradda amniga gudaha dacweeyay oo dacwad ka gudbiyay haddaba shalay ayaa waxaa shir jaraa'id qabtay xeeraryaha degmada Hennepin haweeneyda la yiraahdo Mary Moriarty waxayna sheegtay in dhammaanba cadeymihii la xiriiray dilalkii Rene Good Alex Brady iyo dhaawacii ICE ay u geysteen ninka la ka soo jeeda Venezuela oo la yiraahdo Julio Cesar Sosa Celis in gabi ahaanba lagu soo wareejiyay marka cadeymahaasi maxay yihiin lagu soo wareejiyay dacwadoogayaasha degmada Hennepin waxay leeyihiin waa hard drive ay dhammaanba ku jiraan muuqaaladii kaamarooyinkii u xirnaa ciidamadii ICE ee dilay Rene Good iyo waliba Alex Brady waliba gaarigii Rene Good oo ay FBI-du ay qaateen iyo wasaaradda amniga gudahana hadda waa lagu soo wareejiyay si iyaguna dhankooda ay baaritaano ay u sameeyaan iyo sidoo kalena statement ama qoraaladii laga qoray askartii dilalkaasi geysatay sidii wax u dhaceen markii ay sharaxayeen sidoo kalena waa lagu soo wareejiyay marka waxay tiri dhammaanba hadda cadeymihii gacanteena ayay ku jiraan waa muuqaalo aad u fara badan baarayaasheena ayaa dib u eegaya markaasi kadib ayaan waxaan go'aan ka gaaraynaa inaan dacwada ku soo ogno askartii ka tirsanayd ciidamada ICE ee dishay Rene Good iyo waliba Alex Brady isla markaana dhaawacday Julio Cesar Sosa Celis dhammaanba waxay tiri markaasi kadib ayaan go'aankaasi gaari doonaa laakiin dhammaanba hadda cadeymihii aan u baahnayn dowladda federaalku gaar ahaan wasaaradda amniga gudaha iyo FBI-du waa nagu soo wareejiyeen marka
annaga ayay noo taala ayay tiri inaan bal dib u eegno dhammaanba cadeymahaasi gaarigii Rene Good muuqaaladii kaamirooyinka askarta ICE u xirneed iyo sidoo kalena statements ama qoraaladii ay sheegeen kadib markii dilalkaasi ay geysteen haddaba waa tan xeraalyaha degmada Hennepin Mary Moriarty oo shalay shir jaraa'id qabatay arrimahaasina ka hadlaysa. The wonderful thing is now is we have all the evidence. So we're extremely grateful to all of the federal partners for bringing us back to the way it should have been back on January 7th. Anytime you are looking at a case for potential charges or not, you want to be as thorough as you possibly can. So obviously we wanted absolutely every piece of evidence that they have because it's really important to a lot of people that we get this right. dhinaca kale wax ka yar toddobaad ayaa ciidamada ICE waxa ay dileen 2 qof oo ay sheegeen in aysan ahayn dadkii ay raadinayeen waxaan ognahay talaadadii hore in oo hadda toddobaad uu ka soo wareegtay magaalada Houston gobolka Texas inay ku dileen nin asal ahaan ka soo jeeda Mexico laakiin 35 sano wadanka joogay sidii aan shalay idin sheegay 3 caruurna ku dhalay isla markaana qarka u saarnaa hadda green cardkiisa inuu helo ciidamada ICE waxay yiraahdeen ninkaasi qof aan raadinaynay ayuu noola ekaaday markii dambena waxay yiraahdeen gaari uu wato shaqadiisa ugu sii socday dadka saarna ayaa waxay u ekaadeen dad aan raadinaynay ilaa hadda baaritaan ayaa socda iyadoo arrintaasi jirto ayaa shalay subax haddana ciidamada ICE waxay magaalada Bedford ee gobolka Maine ay ku dileen nin asal ahaan ka soo jeeda wadanka Colombia oo aabe 26 jir ah oo la yiraahdo Juan Sebastian Guerrero ninkan shaqadiisa ayuu ku sii socday qof social security la siiyay ayuu ahaa isla markaana shaqadiisa ku sii socday ICE isla sidii marmarsiihii ayay soo gudbiyeen waxay yiraahdeen waan ku qaldanay warantiga aan wadanay qofkii uu aan raadinaynay ma uusan ahayn laakiin gaarigiisa ayuu isku dayay hub ahaan inuu noogu isticmaalo waa sidii Rene Good ay sheegeen ninkii talaadii la soo dhaafay Houston ay ku dileen ay sidaas ay tiri qof kasta oo ay dilaan waxay leeyihiin gaarigiisa ayuu rabay inuu najiirsiyo oo hub ahaan uu noogu isticmaalo laakiin mid kamid ah senatarada laga soo doorto gobolka Maine oo la yiraahdo Agnes King ayaa waxa uu yiri wasaaradda amniga gudaha ayaa ila soo xiriirtay waxayna ii sheegeen in ninkaasi si qalad ah uu ku dhintay isla markaana sidoo kale uusan ahayn qofkii ay raadinayeen gaarigan cad ayuu watay sidaad aragtaan 5 xabadood ayaa dhinaca darawalka uga taala miraayada hore sidaad arkaysaan waxaana muuqanaysa hadda inay dhahayeen ninkan waxa uu doonayay inuu cararo oo gaarigiisa uu najiirsiyo marka badqabka shacabka ayaan u baqnay sidaas darteed ayaa anagoo istifaacayna ninkaasi xabada ugu furnay sidaas ayuu u geeriyooday ayay leeyihiin waa wax ka yar toddobaad oo 2 qof oo sharci la'aan ah oo ICE dadkii ay raadinayeen aan ahayn oo ay dilaan isla markaana ay yiraahdaan ma ahayn dadkii aan raadinayna waa ku qaldanay ma dhahayaan laakiin baaritaan ayaa socda kulay labada arrinba baaritaankooda ayaa socda haddaba waa kan mid kamid ah senatarada laga soo doorto gobolka Maine oo dhahaya waxaan doonaynaa inaan ogaano ninkan sidoo doonaya gaarigiisa inuu hub ahaan ugu isticmaalo maxaa awoodan xaddaafka ah loo isticmaalay oo la gaarsiiyay inuu ninkaasi dhinto oo 5 xabadood lagu dhufto baaritaan ayaan ka rabnaa ayuu leeyahay wasaaradda amniga gudaha waa kan isagoo ka hadlay. And the question is, what did he do with his vehicle? Were officers threatened? Were the threats rising to the level that justified deadly force? dhinaca kale waxaan ognahay habeennimadii Sabtida oo hadda soo galaysay senatarkii caanka ah Lindsey Graham inuu geeriyooday waxaa hadda baarayaashu ay sheegeen ninkaasi in xididka dhiigga siiya wadnaha in uu dilaacay isla markaana dhiigga uu berdareynayay isla markaana xilli dambe la ogaaday oo aan waxba laga qaban karin sidaas darteedna uu geeriyooday walow la arkayay FBI-da oo gurigiisa baaritaan ku sameynaysa oo bal doonaya inay ogaadaan in ay jiraan waxyaabo sababay geeridiisa laakiin madaxweyne Trump oo maanta la weydiiyay waxa uu yiri FBI-da waqti ay iska luminayaan ninkaasi sababta uu geeriyooday waan ogaanay haddaba sida sharciga ah gudoomiyaha gobolka laga soo doorto senatarka geeriyooday ayaa waxa uu magacaabayaa qof si ku meel gaar ah muddada xileedkiisa oo hadda November ku eg maadaama November uu doorasho gali lahaa inuu qof u magacaabo marka gudoomiyaha gobolka South Carolina Henry McMaster ayaa shalay gelinkii dambe waxa uu ku dhawaaqay gabadha la dhalatay senatarkii geeriyooday Lindsey Graham oo magaceeda la yiraahdo Darlene Graham in 3 bilood ka harsan xilkiisii in iyadu ay sii dhameystiri doonto madaxweyne Trumpna shalay ayuu bartiisa Truth Socialka ku soo qoray inuu taageersan yahay in iyada loo dhiibo muddada
ka harsan xilkii Lindsey Graham marka gabadhan la dhalatay Lindsey Graham oo weli horey siyaasadda aan xil uga soo qaban isla markaana xil dawladeed aan soo qaban ma doonayso November inay tartanto sidaas darteed maadaama November doorasho uu galayaa Lindsey Graham waa in xisbiga Republicaanka ay helaan qof booskiisii buuxiya sida sharciga gobolka South Carolina oo dhigayana toddobaad kadib geerida waa in la bilaabaa diiwaangelinta dadka doonaya kursigaasi inay isku sharaxaan 22 bishan ayaa musharaxiintu ay soo gudbin doonaan doonaya kursigaasi inay u tartamaan dhinaca Republicaanka 12 bisha Agosto ee soo socota ayaana waxa la qaban doonaa doorashooyinka isreebka haddii laba xubnood konton ka badan ay helin waayaan codadkana waxa doorasho kale oo isreeb lagu celin doonaa 25 isla bisha Agosto markaas kadib qofka ku soo baxa kursigaasi oo dhinaca Republicaanka waxa uu la tartami doonaa Annie Andrews oo dhinaca dimuqraadiyiinta u tartamaysa haddaba waa kan shalay gudoomiyaha gobolka South Carolina Henry McMaster markii uu ku dhawaaqayay in uu xilkaasi uu u magacaabay gabadha la dhalatay Lindsey Graham maadaama uu madaxweynuhuna markii uu u sheegay madaxweynuhuna uu soo dhaweeyay Lindsey took care of his little sister in years long departed. It's my honor to ask his little sister, Darlene Graham, to finish his work for him now. And by the way, Darlene, I don't know if I told you, but after we spoke on the phone in the wee hours of Sunday morning, and you agreed to serve through tears, earlier, I had wondered what you would say. And I was humbled by your quickness to see the duty that you had to serve. And I called the president afterwards, and he thought it was a great idea. sidoo kale gabadha la dhalatay Lindsey Graham Darlene Graham oo iyaduna hadashay markii xilkaasi sida kumeel gaarka ah loogu magacaabay ayaa waxa ay sheegtay in shaqadii uu ka tagay walaalkeed ay sii dhameystiri doonto maxaa yeelay waxa uu yiri waa uu jeclaa wadankiisa shaqadiisana waa uu jeclaa marka waxa ay sheegtay inay diyaar u tahay in muddada ka harsan xilkiisa oo hadda ilaa iyo November ah ay diyaar u tahay in ay sii dhameystirto isla maanta ayaana la dhaariyay xilkaasina ilaa iyo November ay sii hayn doontaa waatan markii xilkaasi loo dhiibay kadib oo ay leedahay waa diyaar ayaan u ahay in aan waajibkan guto. Next, I want to thank the governor for selecting me to serve the remainder of Lindsey's term. It is such an honor. Lindsey has always been there for me, and now I will be there for him. Lindsey worked harder than anyone. He worked nonstop to make our state, country, and world better. He loved his family and loved serving this state and our country. He dedicated his life to our country. It is such a privilege to get to finish some of his important work, and I promise to work hard over the next several months to support the President and carry forward the efforts of my brother on behalf of the citizens of South Carolina and the United States. I know Lindsey thought the world of his staff and colleagues, and with their support, I feel confident. I think this is what Lindsey would have wanted, and I plan to honor him in this way. But I'm going to do this. I got it. ugu dambeyntii madaxweyne Trump shalay waxaan ogeyn in uu yiri 20% maraakiibta xamuulka sida ee Mareykanka Hormuz maraysa waa in nala siiyaa maxaa yeelay annaga ayaa waxaan noqonaynaa ilaaliyaha Mareykanka Hormuz haddaba maanta arrintii waa uu ka laabtay horey maamulka Trump waxa uu dhahayay ma jirto cid awood u leh inay lacag ka qaato maraakiibta maraysa Mareykanka Hormuz oo Iran lacagtii 2 milyan oo maraakiibta shidaalka sidoo ay ka qaadayeen waa kuwii ka soo horjeestay wasiirka arrimaha dibadda Marco Rubio waxa uu yiri dawlad xaq u leh maraakiibta halkaas maraysa inay lacag ka qaado ma jirto horey ayuu arrintaas u sheegay haddaba Trump maanta bartiisa True Socialka qoraalkan dheer ayuu ku soo qoray marka hore waxa uu mahad celinayaa wasiirka gaashaandhigga Pete Hegseth taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka General Dan Kane iyo taliyaha ciidamada saldhigga dhexe ee Mareykanka Brad Cooper oo leeyahay shaqo wanaagsan ayay qabteen marka la eego duqeymihii maalmihii la soo dhaafay Iran meel kala duwan ay duqeynayeen marka waxa uu yiri lacagtii 20% waan ka laabanay sidaas darteed wuxuu leeyahay wadamada carabta ee qaliijka ayaan doonaynaa in wadankeena ay maalgashi ay ku sameeyaan waxa uu yiri arrintaas iyagana way u fiican tahay innagana waa ay noo fiican tahay marka arrintii 20% lacagtii ahayd waxaan ku bedelayaa maalgashigaasi ay wadankeena ay ku sameynayaan
horeyna waa igu sameeyeen ayuu yidhi haddana wuxuu yidhi waxaan doonaynaa inay ku sameeyaan waxuu sidoo kale sheegay in ay ballaarinayaan go'doominta ay saareen Iiraan oo shidaalkeeda in aysan dhoofsan karin oo wax maraakiiba oo dekedaheeda tegaya isla markaana ka soo baxaya aysan jiri karin marka Trump waxa uu leeyahay halkii 20% maraakiibta marinka Hormuz maraysa aan ka qaadi lahayn xamuulka hadda waxaan doonaynaa wadamada carabtu inay maalgashi ku sameeyaan wadankeena oo lacag balaayiin dollar ay ku maalgashtaan oo warshado iyo shaqo fara badan halkaasi laga abuuro aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo